gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha Soomaaliland mudane Sharmaarka Geele ayaa maanta kulan kula qaatay magaalada Burco barasabka gobolka Togdheer iyo isduwayaasha laamaha dawladda u qaabilsan gobolka. kulankani oo ka dhacay xarunta maamulka gobolka Togdheer ayaa ujeedkiisu daarnaa dardargelinta tayeynta iyo tirada shaqaalaha dawladda ee ka diiwaan gashan gobolka Togdheer. waxaana ugu horeyn hadalka furay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha gobolka Togdheer Cabdifataax Shalumaray iyo gudoomiyaha guud ee hay'adda shaqaalaha Soomaaliland Sharmaarka Geele oo ka hadlay ujeedka iyo nuxurka uu xambaarsan yahay kulankani. xog waran iyo dardargelin hawlaha qaran ee u igmo tahay hay'adda shaqaalaha dawladdu ayaa halkan inooga bilaabmaya. waxayna la jooga wafdi heer qaran oo hay'adda shaqaalaha dawladda uu hogaaminayo gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha iyo saraakiil sare oo ka tirsan komishanka hay'adda shaqaalaha iyo shaqaalaweynaha hay'adda shaqaalaha waxayna la wadaagi doonaan kulanka iyo ujeedooyinka loo qabtay ee maanta la isugu keenay. dhawaan waxaynu bilaabi doonaa mashruuc ballaaran oo ah tirinta iyo tayinta shaqaalaha dawladda. waxaynu u tirinaynaa ama aynu xogtooda u baadi doonaynaa si wax loola qabto. waa laga yaabaa inaynu in badan ama marar badan aynu maqli jirnay inagoo madax taabasho samaynayna, laakiin laba shay oo muhiim ah oo ay ka maqnaabayno doonaa doorkeena inaynu kobcino. shay koobaad waxa weeye dadkan aynu tirinayna inaynu ku tirinno in indhahooga ama farahooga midkood la qaado si ay u noqoto xog rasmiya oo aynu isticmaalno qalabyadii kala duwanaa loo isticmaali jiray marka doorashooyinka oo kala diiwaangelinta la samaynayo. si ay uga ilaaliseen laba jeer qofku meel jeer ka soo gali karo inaynu tirinayna ama aynu dabagalaynaa. waxa ugu muhiimsan maaha inaynu caagla raadinayno iyo qof laba meelood ka mishaar qaato kaliya. waxay naga maqan dhammaan xogtii shaqaalaha dawladda ee waxtarka leenagu qaban kari lahaa. ilaa 16 su'aalood shaqaalaha dawladda lagu ogaanayo. 16 su'aalood waxa ka samaysmi doona waxa laaliyo waxa kubcinayo taran shaqaalaha dawladda u baahan yihiin. sidoo kale kulanka iyaga waxa weelin doona inaynu gudoomiyaha iyo golaha deegaanka ka sheekaysano xarun inaynu helno hay'adda shaqaalaha noqoto xarunta rasmiga ee hay'adda shaqaalaha. gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamuud Cali Saleebaan Ramaax ayaa ugu dambeyntii soo dhaweeyay hawshani ballaaran ee lagu tayeynayo shaqaalaha dawladda ee ay wado hay'adda shaqaalaha Soomaaliland. maanta haddii ay hay'addii shaqaaluhu wax inoo soo diyaarisay waxaan soo dhaweynaynaa. waxaan leenahay xaruntaasna dalkii lagu soo shaqeeyay dhul dawladeedna waa haysanaa. jaamacaddii dawladdu way inoo joogtaa. xafiisyadii dawladda ee gobolka kaloo dhamina waa joogaan. runtii aad iyo aad u soo dhaweynayaa mashruucaasi ballaaran ee lagu tayeynayo shaqaalaha. Xabiib Ciga Xasan, Universal TV, magaalada Burco.